السلام عليكم kusoo dhawow mid kamid ah abka Jaamacadda Abraar ee ugu talagashay ardayda inay casharada ugu qaataan qaab online ah. Haddaba aan gudaha u galno oo aan aragno tilaabooyinka oo macallin kasta u baahan yahay si cashirka oo ardayda ugu gudbiyo hab muuqaal ah. Ugu horeyn ardayda iyo macallinka inta waa inay wada haystaan internet. Macallinkana waa inuu computer haystaa marka ku xigta. Marka ku xigtana ardayda waa inay haystaan computer ama mobile kooda ay ka soo gali karaan oo ay macallinka kula socon karaan. Intaas waxa si xigto kale in la wada haysto Google Chrome oo ah browser wax lagu baaro iyo oo aan midna la isticmaalin Firefox ama Internet Explorer labadaasba abka aan soo wadno kuma shaqeynayo. Waxa uu ku shaqeyn doonaa waa Google Chrome. Waxa u baahan tahay computerka inay ku jirto Google Chrome waa kana soo kacaya. Browserkan ayaa lagaga baahan yahay inay haysato. macallimiintana inay haystaan ardaydana inay haystaan siiba macallimiinta. Okay, halka markuu macallinka yimaado markuu wuxuu qori doonaa magacan meet.google.com. markuu enter dhaana wuxuu u soo qaadi doonaa halkaan ay ku qoran tahay meet.google.com iyo madashaan hortaada ka muuqata. dhinaca midigta hadaa fiirisid waxaa ku qoran userka haddaba aan uga jiro oo Abrar University ah. laakiin waxa laga yaabaa adiga markaad si caadi ah u soo gasho switch account hadaan dhahno kale gmail-kaaga inuu isla markiiba hadda ku soo baxo gmail laguma isticmaali karo. jaamacadda ayaa sii doonta qof walba macallin walba user iyo password oo halkan ku soo gali karo ku dhufo oo hadda waxa laga yaabaa adiga marka gmail-ka caadiga aad ku soo gasho meet.google inuu sano kale ku keeno oo gmail-kaaga ku soo qabto. gmail-kaagana wax badan oo shaqada meeshan la rabo in laga qabto laguma qaban karo. waxa loo baahan yahay kulaabo oo mar walba waxaad isticmaali doontaa username-ka iyo password-ka ay jaamacaddu ku siiso. halkan hoose ku qor user waxaad doorataa user another account. halkan waxaad gelisaa userka lagu soo siiyey. hadda userkeena wuxuu iska noqon doonaa info@abrar.edu. waxaan dhihi doonaa next oo aan socodsiin dhinaca kale noo socodsiin. halkan waxaa la geli doonaa marka oo macallinka geli doonaa password-ka ama password-ka la siiyo oo username-ka la socda. kadibna maxaa ku xiga halkan ayaa la soo aadeeyay isla meesha uu soo celiyay oo username-ka hore aan isticmaalayay ayaan aniga ku soo isticmaali doonaa. laakiin mar walba muhiimadda waxay ahayd si adiga ku soo galay ama username-ka cusub ee lagu sii aad ku isticmaali doontaa. maxaa ku xiga waxa ku xiga halkan join or start meeting. macallinka waxa la markaa inuu cashirka bilaabo oo si toos u galo qabka uu bilaabi lahay ee halkan ka bilaabanaysa iyadana ku dhufo oo halkan box-ka soo baxaysa. halkan waxaa lagu qorayaa magaca jaamacadda ku qori kartaa ama macallinka wuxuu ku qori karaa maalinkaas mowduuca uu ka hadlaayo ama uu isaga tagi karaa iyadoo bannaan. laakiin waxaa fiican in lagu qoro magaca continue dheh oo wuxuuna soo qaadi doonaa meel kale. markaan continue dhahno wuxuuna keeni doonaa qayb iyadana soo socota oo aan arki doono. qaybtan haddaa fiirisid midigta waxaa kaaga muuqda macallinka cashirka bixinaya ayaa kasoo muuqan doona kaamirada ka qabanaysaa. dhinaca bidixda midigtii aan dhihin tii hore waxay ahayd bidixda. dhinacan midigtana waxaa kaaga muuqan doona laba shay oo ah present ama join now. hadda aniga waxaan u baahan present waa jeedin laakiin waxaan baahan in ardayda ku soo darno waxaan dhihi doonaa join now. join now ayuu noo soo qaaday. halkan magacii aan soo baxsanay ayaa noo qoran laakiin linkigan ayaa muhiim ah. hadda koobiga saaran yahay kaasaad qaadan doontaa. kaas mar walba systemka asaa generate ayaa saa samayn doona. adiga waad qaadanaysaa macallinka ahaan notepad-ka ayaa dhex dhiganaysaa. arday kasta ee raba inuu kugu soo biirina linkigaas ama ayaad siinaysaa mar kasto URL-ka ah. waana muhiim oo intaas xiisada ah ku jirto ka uun baad u baahan tahay mar kasto aad soo galaysidna asa uun baa kuu sameynaa kaas baad ka soo qaadanaysaa. koobiyaalada notepad-ka dhiga mar walba ardayga loo diri doonaa. waa kana oo aan iska xirino hadda waa koobiyeysan notepad-kina waa dhex dhignay bistiinta ku soo dhaanay iska xir. waxaan ku soo laabanay halka macallinka waa kana halkan macallinka markuu yimaado wuxuu qaadi doonaa dhowr tilaabooyin oo wax lagu maamulo. midda ugu horeysa halkan hadduu ku dhufto wuxuu ku ogaan doonaa how many people ama meeqa ardayga ku xiran oo cashirka maanta dhegeysanaysa. hadda macallinka keligiisa ku jira oo ah userka Abrar University bisa ku jira saa u jeedaan. dhinacaas kale macallinka wuxuu ka samayn karaa ardayda inuu u diro comment ama hadal inuu la hadlo arday macallinka meeshii ay ku hadlaayeen oo kale hadday su'aal soo weydiinayaan oo kale waaye. hadda saa ujeedaan wax ku jira malahan. haddii macallinku wax ugu jiri lahaayeen ama arday ku jiri lahayd isla markii present now ay u dhihi lahaay oo cashirka u jeedi lahaay oo PowerPoint computerkiisa ku jiro soo kacay lahaay. laakiin hadda
arday ma hayno sidaa darteed waxaa qasab in aragno bal si arday loogu soo diraa macallinka markuu halkaa yimaad si ardayda isigana oo u soo invite gareynaa ama uu soo darsanayaa xiisada uu bixinayo lan arday hadduusan xiisada kusoo biirin ama uusan siin macallinka linkii ama wax siinin kuma soo biiri karo waxaan markasta u baahannahay linkiga aan soo koobiyeenay lan hadda inay wax noogu jirin waa aragnay qof uusan noo joogin linkigaana u baahantaa markasta linkiga markaa soo koobiyeyso hadda waxaan soo gaarnay qaybta ardayda oo si ardayda loogu dirayaa linkii ama macallinkii si ardayda isku arkayaan ardayga ka soo qaad inuu mobile ka soo galo ama inuu computer ka soo galo mobilada inta badan aad u fudud marka la fiirsho ama computerada labada way wada fudud yihiin waxaa ku jiri karaa messenger ama waxaa ku jiri karaa whatsapp si fudud ayaa wax loogu wadaagi karaa macallinka iyo ardaydaba si fudud ay ugu wadaagi karaan mobilkaas aad ujeedaan laba whatsapp ku jirta whatsapp kamid waxaan u qaadanaynaa macallinka kalena waxaan u qaadanaynaa ardayga markaa ku dhufo oo kan waxaan u soo qaadanaynaa inuu macallinka yahay oo linkiga hadda aan soo koobiyeynay ayuu macallinka wuxuu dhex dhigi doonaa whatsappkiisa ama hadduu messenger leeyahay gmail waa la isticmaala ama email gmail maanta dhan lama qori karo iyo magac lama qori karo laakiin whatsapp wuxuu ku fiican yahay groupka ayaa hal mar macallinku wada dhex dhigi kara kadibna ardaydu halkaas ku kala qaadanayaanoo way fududda ku dhufo okay isla markii waxaa noo soo baxay in fariin la diray maadaama whatsappka hadda hal mobile ay ku wada jiraan iska xir waxaan fiirinaynaa whatsappka ardayga ahay soo ardayga kusoo galaya marka bal ardayga qaabka kusoo galaya aragno ardayga isla markiiba fariinta macallinka timid ayaa kusoo dhacaysa hadday group tahay iyo hadday keligiisa whatsappkiisa ay tahay halkan hoose ayaa fariinta kusoo dhacday ay ku qoran tahay tab ka timid waa whatsapp halkan markuu yimaado marka laba qayba soo bixi doonta install inay kusoo baxdo ama sida hadda ka muuqata oo video calaamadaas inay soo baxdo marka calaamadaas toos ah ugu dhufanaysa mobilada androidka installkeena marka qaarna tan ku keenayaan install uma baahnid halka markay timaado haddii install u baahatan install soo dhih halka markay timaado join now dhih marka join oo dhahay halkan waxaa yimiday dhinaca macallinka waxaa ka soo baxay inuu yidhaha macallin ardaygaas waana diidi kariya oo una aqbali kara labada waa u soo baxday laakiin hadda maadaama aan rabnay inaan meesha arday ku darno cad midaan dhahnay oo ah inuu aqbalo oo noogu soo daro inuu xiisada kusoo biiro isla markiiba ardayga aan u jeedna xasan maxamed ayaa soo galay sawirkiisa kuuga jeedo ardayga ayuu saareen tahay diiraddu laakiin sawirka iyo macallinka ayaa hal xaba isku ah hadda si loo sameeyo laakiin hadhowta waxay isku bedeli doontaa midda saxda ah ee macallinka iyo ardayga okay hadda saan u jeedno dhinaca meeqa qofaa ku jirta haddaan fiirino dhinacaas ardayga hadda ka muuqda laakiin halkana macallinkan ku dhufano hadda macallinkan kusoo dhufano dhinaca macallinkan kusoo laabanay meeqa arday ku jirta haddaan fiirino linkan kusoo dhufanay xasan baan kusoo darnay dhammaan ardaydana saan oo kale loogu soo wada dari karaa haddii group yihiin macallinka dhinaciisa markaan marba hadduu group dhex dhigo waxaa u fudud inuu aqbalo ardayda helaan halkan waxaa ka qoran meeshaas markaa furtid gantaas waxaa helaysaa mute-kaas oo macallinka inuu codka ka xiri karo ardayga hadduu isiga ku dhuftana ardayga laftirkiisa sawirkiisa aad ku dhufato meesha magaca ugu dhufaleen ardayga markaas la rabo inuu su-aasha la weydiiyo ama ardayga markaas inuu hadla raba ayaa soo baxaya xagga macallinka haddaa ku laabatana macallinka unbaa kuu soo baxaya hadda macallinka iyo ardayga hal sawir isku adhe واشيد عملهن اوكي انت اسمع رن معلمك wuxuu diri karaa fariin maadaama arday aan ku soo darnay ardayga fariin aan u direyna si lamid ah ardayda dhan saas oo kale halka fariin oo la diray way wada arkayaan qof kasta oo maqlaynin marka cashirka macallinka markaas wuxuu dhigi karaa macallinka ma maqlayo laga yaabaa in codka uu mute ka saarayo ama laga damiyay codka oo macallinka codkiisa soo gaaraynin ma dhici kartaa hadda codka saarnay daan fiirto xasan maxamed fariin aan u dirnay dhinaca mobilka markaan rabnaa in fariinta ka soo baxdo isla markii meesha hadda falaar saaranta hadda u jeedid waxa ka soo baxday waxa soo baxday fariinta u soo baxday fariinta markuu ku dhufto hoosta waxa ka muuqata how ma ismaqalnaa waxa ka soo baxday ha ardaygu soo jawaabi karaa waan ismaqalnaa ayuu dhihi karaa oo macallin waan kula soconaa haddii kalena kula ma socono isla markii ardaygu fariin uu soo qori karaa wuxuu soo qoray fariin uu soo qoray hadda ardayga isla markii fariinta way soo dhacaysaa oo macallinku wuxuu arkayaa in arday la socota haddii rano arday macallinka ardayga laftirkiisa codku iska xiri karaa haddii oo codkiisa uu xiri karaa haddii kalena codku fura karaa labadaba meeshaas saddexdaas falaarood ayaa mobilka mar walba kasoo muuqanaysa uu furaaca in codka la xiraay xataa macallinka ayuu la sheergaran karaa shaashadiisa kuleeyahay waa okay intaan aadaynaa marka isla weli daan meeshaas si fiican ugu celiyo macallinku wuxuu samayn karaa inuu codka ka xiri karo ardada si uu ardada ugu manage gareeyo fiican meeshaas oo kale mute codka la saarin karaa
kii oo rabo macalinka markaas uu rabo inuu su'aal weydiiyo sawirka ku dhufanaa mees thumbnailka sawirka soo muuqanayso gmailka ama sawirka u saaran ardayga sawirkiisa soo baxaya haddii macalinka la rabana macalinka sawirkiisa lagu dhufan karaa markaas waxaa soo baxaya macalinka ayaa soo baxaya markaan aan aadno inuu macalinka bal cashirka jeediyo intaas maamulka guud aan uga soo tagno meeshaan waxaa ku qoran your entire screen ama window macalinka halkan wuxuu ka dooran doonaa present markuu soo dhaho entire screen present waa jeedin shashada sawirka ka dooro kadibna share dheh shartaas macallin buu ku dhufto wuxuu aadi doonaa desktopkiisa ama shaashadiisa meel kamid ah oo u saaray cashirkii hadduu cashirka u kacsanaya powerpoint-ga waa kan aan cashir powerpoint ay kacsan isla marka cashirka powerpoint-ga wuxuu ku saaran yahay taskbar-ka hoose ama desktop-ka ka soo kicin kartaa marka la soo kiciyo waa kana dhinaca ardayga waxaa ka soo muuqday isla markiiba sawirka oo powerpoint-ga oo macalinka soo kiciya ka muuqda wuu wadi karaa macalinka ilaa hoos uu wadi karaa hadaa ujeedid ardayga uu fiirinaya sawirka hadda u saaran isla powerpoint-ga sawirkiisina wuu muuqdaa ilaa hoos uu wadi karaa oo wuxuu fiirin karaa powerpoint-ga midkiis bedelaba dhinaca ardaygana uu iska bedelaa ardayga aan markaas helina uu la soo hadli karaaba kadib macalinku iska xiraa markii xiisadu dhamaato stop hadda waan iska xirnay daawaan aragnay kadibna macalinku wuxuu ku laaban karaa Google-kiisii qaramkiisii ku laaban karaa wuxuu ku soo laabanaa halka cashirka uu ka socday halka aan markuu yimaad ugu dambeyn waxaan ku gabagabeynaa inuu macalinka xiisada uu duubi karo siyaabo kala duwan wax loo duuba jira laakiin macalinka isla markiiba record meeting uu dhigi karaa si cashirka loo duubo waxaan baleynaa inaad wax badan ka fahanteen waan ku mahadsantiin dhegeysigiin